عثمان شيخ عامر سودو حسين بلحان marti sharafkan madaxda joogta ardayda gidigiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalkayga waxaan ku bilaabayaa bismi illaahi araxmaani araxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi wasallim sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta halkan imaado oon ka hadlo shay muhiim u ah somalilan mustaqbalkeega dhaqaaluhu waa salka ummadda mawduucaan ka hadlayaana af ingiriisi waxa weeye somaliland beyond the current difficulties and to a bright economic future haddaan tarjumo ka gudubka dhibaatooyinkan yaalla oo gudubka mustaqbal cad oo wanaagsan dhaqaale ahaan waxaan saarayaa quwadda afar shay halkaynu ka nimid halkaynu joognaa halkee baa habboon inaynu u soconno dhibaatooyinka inaga hor iman karaa maxay yihiin hadafkeenna ultimatekiisa waa maxay somalilan dhibaatooyin badan bay ka soo gudubtay 26 sannadood ee dhowaa si sharaf leh oo wanaagsanna way uga soo baxday ti oon cidina u sheeganayn waxba adduunka dhulka burbura mucaawanooyin badan baa la siiyaa innaga cidina waxba inoo sheegan mayso innagaa dhisannay markii lagu soo noqday halkan waad wada og tihiin dhul burbura oo wixii taagnaana la dumiyey wixii la qaadan karayana la qaatay dhulkiina miino lagu sii wada daayey sebtembar 19 baan imid halkan tii oo aad moodo ee horror story lagu arko muufiyada dhibaatooyinku ka dhacaan anuba ekayn wax xaqiiqiya haddana muddo gaaban iyaa xasiloon nabadgelyo macaamul hagaagsan oo dimuqraatiya inkastaba dheeli ay iska jiree 4 president oo la soo doortay kii shanaadna iminka la gelayo afrika naadir iyay ku tahay maba jirtaba markaa dadku waxay yidhaahdaan koobku ma badh buu maran yahay mise badh buu buuxaa qofka mutashaa'imkii wuxuu odhanaya wallahi koobkaasi badh buu maran yaho inta kalena way guri doontaa dhinaca kalena wallahi inta kalena waynu dhirid inta kalena waynu buuxin karnaa so waxaan leeyahay dhibaatooyinka maanta inala soo gudboon kartidaa aynu kaga soo baxno aynu kaga bixi karnaa hadday isku duubni timaado hadaf la wada leeyahay aragti dheerna la hayo waayo mashaakilkan inala soo gudbooni maaha mid berrito qofka la doortaa u xallili karo mashaakilka inala soo gudbooni way badan yihiin ta ugu horraysa ee miiska taalaa waa inflationkan maanta yaalla markaa iyada dib baan iskaga dhigi shaqola'aanta weliba dhallinyarta 70% 30 jir bay ka yar yihiin 70%na waa bilaa shaqo resourceka u weyneed haysaa waa dad weliba dhallinyar xoog iyo energy haysa haddaad kuwaa ka shaqaysan kari weydo ku shaqayn kari weydo dee meel gaadhi mayse shaqola'aantaasina dhibaatooyin waaweyn bay keeni kartaa tahriibtii ka mid tahay oo tahriibtii waxay maanta u joogsadeen ee yurub baa albaabadii xidhatay intaynu soo saarnaa nuskeed way ka yar tahay intaynu cunno
horumarkuna waxa weeye in inta aad soo saartaa ka yaraato intaad adigu cunto oo inta soo harsan savingska aad investment geliso oo investmentkaasi koboc dhaqaalaha sameeyo wadannada aad hore ugu maray China ka mid tahay ee duulay savings rate-koogu waa 8%. Dollarkay helaan nus bay dhigaan oo investment geliya. Singapore 44% weeye savings rate-koogu. Innaga waa negative. Adduun weynahana marka la isku celceliyo waa 23%. taa waxa garab taala waxay yidhaahdaan balance of trade. waxa aad dirto iyo waxa aad dibadda ka soo iibsato caadiyan waa inay isleekaadaan waxaynu dirnaa nus way ka yartahay waxaynu dibadda ka soo iibsato cuntadeennii oo dhan dibaddaynu ka keennaa waxaynu dirnaana waa xoolaha oo sii taag yaraanaya oo abaar iyo climate change iyo wax kale sii jilcinayaan haddii aad ugu yaraan cuntadaad cunayso beeran weydo at least kala barhkeed ee khatar baad ku jirtaa waxaa dhacday 2008 food crisis inaad xusantiin mooyaane ayaa dhacday cuntadaa qiimaheygii samada galay wadannada barhkood baa joojiyey inay bariiska uga diraan Thailand iyo India meelaha adduunku sidan u ahaan maayo cuntadii dibadda laga keenayay dariiqyadii la soo marinayaa xidhmi kara shayga ugu weyn ee dhaqaalaha kobciya waa private sectorka guud ahaan waxayna soo nabadgeliyey ee halkaayna soo gaadhsiiyey inta badan waa private sector markay dawladdu daciifka ahayd ciddii xataa buuxisay kaalintii dawladda tacliin hadday tahay caafimaad hadday tahay telecommunication hadday tahay transportation hadday tahay private sectorka boqolkiiba 90 dhaqaaluhu waa private sector adduun weynahana waa laysla ogyahay ijiinka dhaqaajin karaa dhaqaalaha waa private sector dawlad maaha dawladdu biicadda private sectorku ku shaqeeyo iyay samayn kartaa oo carqaladaha inay ka qaado inay hubsato monopolis waxoogaa yar oo waaweyni inaanay buquujin mushariga soo koraya inaanay siyaasadda dawladda weecsan in loo sahlo sidii business loo samayn lahaa sidii loo register garayn lahaa sidii loo socodsiin lahaa sidii carqaladaha ay ka soo boodboodayaan ee intaanay business bilaabin laga doonayo loogu sahli lahaa taasi mid weyn ma aha dawladduna way og tahay world bank iyana way ku caawiyeen waxaa ka mid a wax la yidhaha one stop investment center waxa weeye qofkii inuu u yimaado meel oo yidhaha waxaa business baan startayaa ila hagaaji oo waxaaba halkaa loogu dhammeeyo laakiin unfortunately weli lama wada fulin investment centerkaasi meelo badan bay wax weyn tartay oo ay sahashay dee sidii business loo abuuri lahaa Rwanda in sannada iyay ku yaraysay tallaabooyinka la qaadayo markaad business register garaynaysaad bilaabayso ama dhul ahaato ama caafimaad ahaato ama tallaabooyin kale oo ahaatee tallaabooyinkii oo dhan bay isku keento 8 ilaa 3 waqtigii lagu qaadanayay lagu dhammaynayay 18 cisho ilaa 3 cisho lacagtii kharashkii ku baxayay 10% intay ahaan jirtay sannadan way ku sameeyeen private sectorku shayga ugu baahan yahay ugu weyni waa finance iyo credit waa dhiigga
dhaqaalaha iyo private sector baanankeennu waa yar yihiin kartidoodu way yar tahay 2 baan baynu leenahay mid saddexaadna ku soo biiray competition weyni ma jiro waxaa la yidhaha term financing ma jiro investment haddaad samaynayso midaad 18 bilood ama 2 sannadood kuma soo celin kartid warshad qofkii sameeyaa wuxuu u baahan yahay dhowr sannadood service charge iyo ama interestka kay doontaba noqotee laga qaadaana mid macquula inuu noqdo taana competitionkaa keeni kara bankin loogan laalanna in laga fikiro sidii loo soo noolayn lahaa ee looga dhibayd garayn lahaa ma u baahannahay qur-aankii la akhriyayey inanku akhriyayey ribadu u badnaa axalla allaahu albayca wa xarama ariba waa sax muslimeen laakiin in laga doodo oo la eego oo la yidhaahdo 750 waddan ee muslimka ah maxay giddigood eeraan maahae u leeyihiin commercial banks tani waa sensitive oo dad badan baa diidi doona su-aashan laakiin maaha inaynu qaadanayno waa in laga doodoo la eego un bes oo la yidhaha ma jirtaa dariiq la mari kara inaynu gudahana ka dhigno teenna dibadda marka lala macaamilayana tu kale laga dhigo mooyi garan maayo oo ma ihi expert islamic banking laakiin arrin la furo oo aan la xidhin inay ahaato service charge interest rate wuu socday laakiin service chargeku markuu noqdo 15% muddada lagu soo bixinayaana muddo gaaban noqoto inta adduunka kale ama service charge de ama interest rate de waddannada muslimkii service charge-koogu aad uma badnaa 15 iyo 5 ma hubo intay tahay interest rateka adduunkuna aad buu hooseeyaa lacagtuna waa mawjuud oo lagu amaahinaya bal markaa baanan inaynu furo in la xoogeeyo central bankan iska magacana la adkeeyo central banku haddii baana la furo oo loo sii daayo waa inay jiraan qudrad uu central banku leeyahay oo uu ilaalin karo monitor garayn karo supervision ku samayn karo prudential regulations baa la yidhaha oo maalka dadkii baa dhigtay in banku dadka maalkoogaa la dhigtay uu ilaaliyo wuxuu markaa u baahan yahay inuu independent noqdo dowladda ka baxsan yahay in loo dhiibo dad karti lagu doortay in reer lagu dooran in qofka la doortayna weliba 2 administration u dhaxayn karo oo aan la dooran marka presidentka cusub yimaado ay 2 u dhaxeeyaan si uga noqdo xor independent uga noqdo so central bankaasina waa muhiim ashyaa fara badan baa aan ka hadli lahaa laakiin waqtigaas soo gaaban 2 un baan sheegayaa iqtisaadkeennu wuxuu ku dhisan yahay adhiyo beero ilaa 80% dadka ka shaqeeyaa ee ku nool ama ku tiirsani agricultureka waa intaa ilaa 70-80 meelayowga figariska maayo cid kale ii sheegi karta marka haddii la develop gareeyo kuwa oo la adkeeyo shaqo way abuuraysaa shaqo mushaare la isku siinaya maahee dadkii lahaabaa ay mashquulinaysaa oo magaaladan la imanayo miyiga laga imanayo ay yaraynaysaa sidii aynu weligaynba xoolaha u dhaqan jirnay beerahana u qodan jirnay waynu sii soconnaa adduunkii wuu isbedelay technology badan baa jira dry farming meelaha abaarta midhaha laga beeri karo xoolaha sida loo dhaqo oo technology cusuba
oo dad Soomaaliyeed baa imika ay tareegaraynayaan inay wixii bedelaan ama geel la dhaqdo ahaato ama beero cusub oo la samaysto ahaato. value addition in lagu sameeyo macnaheedii adhigii haddaad dirto meeshaad u diraysaana meel qura tahay 80% Sacuudi 70%na waqtiga xajka oo haddii albaabka laga xidho ay ku dhammaatay sidii imika dhacday. value addition in lagu sameeyo oo xoolihii intaad xoolaha dhoofinayso hilib la dhoofiyo oo laga sameeyo laga sameeyo harga iyo kaba iyo ashyaada ku xidhan ilaa chainka dhan. beeraha sidoo kale beeyadu inkastoo yar tahay waxaa qofkan soo bixiyaa 5% buu qaadanaya marka loo diro dibadda oo kuwa cadarka ka samaysta ama ka samaysta cosmeticska ka samaysta ama dawooyin ku dara inta laga helo 5% bay ka helayeen kuwaasoo beeyada soo waa la samayn karaa wax weyn ma aha. waxaan ku faraxsanahay qolaa isku dayday dhowr qolaa isku dayday meeshan Mansuur masalan halka hoorka qolo samaysay oo I think Dubai bay ku sameeyeen ashyaadaasoo kaloo value addition waxaad haysay ood wax ku darto isagoo raw material waana diraad wax ku darto. anu soo noqday inflationkii kuwani waa aan sheegay waa ashyaa muddo dheer qaadanaya oo aan beri tahay. central banku waxaan leeyahay inflationku waa shay muddo gaaban qaadanaya. waxay yidhahdaan stabilization haddii lagu qiyaaso dhaqaale dhibaata haysato waa patient la geeye cusbitaalka oo shayga ugu horeeya intaan wax kale loo gudbin la yidhaa aynu stabilize garayno an noqdo stable. marka inflationku stabilizationku ka mid yahay macroeconomic stabilization isagiyo taraacdo oo ah miisaaniyadda cagsi miisaaniyadda dawladda oo labadu wada socdaan. inflationka laba shay baa keena. waa wuxuu la mid yahay salcad la iibsanayo haddii sablaygu bato qiimaha dhacaya hadduu dhimaanku kaco qiimaha kacaya bas labadaas. markuu adhigu istaagay sablaygii doolarkaa yaraaday markaa dabcan qiimihii shilinku uu dhacaya. haddii la badiyo shilinkana la badiyo oo la daabaco taasina waxay geysanaysaa in sablaykii shilinku oo shilinka qiimo beero. markaa control weliba ta aad gacanta ku hayso ee maxaan ku dhaha lacagtaa la daabacayo ee la kordhinayo taasaa muhiima waayo lacag badani hadday soo gasho ala duur iyadoon meel kala marin bay inflation samaynaysaa qiimihii shilinka hoos u ridaysa. waddanka Zimbabwe la yidhaah wuxuu ahaa waddan si wanaagsan u socda oo warshado leh oo ziraacad badan leh. mushkilado qolada westku ay ku soo rogeen oo malaha mucaawanadii laga joojiyay ashyaa kale dhaceen oo miisaaniyaddii cagsigeedii u batay yaa lacag iska daabacay. doolarkooga Zimbabwean dollar oo ahaa 3 Zimbabwean dollarba dollar Maraykana ahayd yaa 100 noqotay 1,000 noqotay malyuun noqotay balyuun gaadhay markaasaa la iskaga tegay doolarkoogii oan cidiba qaadanin.
beri dhaweyd baan tegey march baan tegey oo souvenir baan soo qaatay note yaroo billion dollars ku taalo billion oo billionkaasi aanay koobshaa goynaynin anuu war uma hayo daabacaaddu halkan siday tahay laakiin taxadir shayga ugu weyn ee la iska ilaaliyaa waa cumlad la daabaco daabacaadda cumladu laba shay baa yaa loo samayn karaa tu duugowday oo suuqa laga saaroo lagu soo bedelo iyo dhaqaalihii oo kobcay oo kobcaa uu kobcay kana si cusub loo soo sameeyo laakiin laba daraale haddii miisaaniyadda dawladdu isbixin weyday lagu daboolo lacag la daabacay way qiimo beelaysa again malihii saasaa la sameeya anugu war uma hayo oo cid eedayn maayo laakiin adduun weynuhu experienceku taasuu tusaya lacag daabacaad in layska ilaaliyo central bankuna inuu doorkiisa qaato monetary policyga central bank ah iyo adduunka oo dhan central bank mustaqil ka ah oon xukuumadii u talin oo haya lacagta barnaamijkaa aan soo jeediyey oon dhannayn uma taalla dawladdu markaynu idhaahno dawladda cusub baa xallilaysa dawladdu waxay xallili kartaa dawladdu waa innaga un mujtamac oo dhan bay u taallaa ta aynu cunayno wax nus ka yar waxaynu soo saarayno waa wax ummadda u taalla ta aynu wax walba soo waaridayno cuntadii aynu cunayno soo waaridanayno oo adhiga la diraa aanu dabooli karin cuntada la soo waaridayo saliidda la soo waaridayo tiyo mujtamac ahaan corruptionkii uu noqday shay la aqbalo corruptionku waa xar ku dhex jira tiirka ummadda waddanba waddanka uu ka corruption badan yahay buu ka hooseeya waa shay fact oo cad dadkuna hadday oggolaadaan corruptionkaa oo weliba ay ku ammaanaan qofka corruptka ah waa fariid la yidhaha ee dhibaatadii dadkaane haddii aan la xisaabin qofka corruptionka ku jira ee la yidhaha inaga daaya ka dambana halkaasuubu maraya so corruption waa shay weyn oo u yaalla mujtamac oo dhan in la joojiyo qabiiladu institutions dawladeed lama dhisi karo haddii aan qabiiladu yaraanin haddii lagu qaybsado wax walba reer oo qabiiladii noqoto wax arrimihii dawladda marka laga hadlayo soo dhex gasha oo intay hoosu socoto dan reereed dan jelib dankan oo laga soo fogaado dantii guud dadku doonni bay ku wada jiraan doonnidu hadday qaraqdo waa lala wada qaraqmayaa qabiilo ku nabadgeli mayso markay doonnidaasi qaraxdo ay qarqanto qaadkuna mushkilad weyn ijtimaaciya oo dhibaatooyin badan tahay taasina mujtamacay u taalla dawladdana waxaa u taalla gurigeyga inay hagaajiso waxay hesho inay si efficienta oo shafaafiyad leh u isticmaasho calaa sabiili ilmisaal kontraadska dawladdu bixiso daaqadda u horraysa corruption galaan waxa weeye haddii aan si wanaagsan loo bixin oo cid la siiyo oo la heshiiyo oo ka bixinaya ka loo bixinaya ay heshiiyaan oo qiimihii dabal noqdo hadday noqon weydo dawladda waxaa ka soo baxaa in competitive loo siman yahay oo loo tartamo
oo qiimihii marka la tartamo qiimo caadi ah oo hooseeya lagu wada helo. waxaa jira standards adduunka oo dhan accept gareeyoo jira oo la og yahay, best practices ah, procurement standards. oo waxaa ma ikhtiraaxayno wax cusub ee waxaa adduunku isticmaalee shafaafiyadda lehee adagee experience kale la soo jitaabiyey aynu isticmaalno. private sectorkana mid baa u taala, iyagaa waddanka soo waday. laakiin social responsibility of businesses, responsibility bay u leeyihiin mujtamac. haddii aanay u lahayna waa in la joojiyaa. monopoly inuu abuuro, oo shayga ugu xumay waxa weeye monopolies inay abuurmaan oo kuwii kale una qabateeya. ama standardkii waxay doontaba ahaatee tacliinta masalan in standards loo yeelo, quality control yimaado. nin jaamacad furtay oo u furtay maxaan ku dhahdaa waxaynu leenahay 30 jaamacadeed oo dheeraad, alxamdulilah markaynu soo noqonay xabad maynaan lahayn, waa injaaz weyn weeye. laakiin quality control dowladday u taalla, quality control waanu yimaadaa. malaha looma baahna waddan yar oo imkaaniyaadkiisu yar yahay in 7 wasiir iyo wasiir ku-xigeen ay yeelato. in yaroo kooban oo shaqadii la consolidate gareeyey yaa buuxin karta. haddii loo kordhiyo si qabiilo walba mid loo siiyo dee taasi ma dhammaanayso. there is always jilib kale oo isaguna wax doonaya. marka in ay si kharashkana loo yareeyo, waayo imkaanaadkii dawladdu haysatay way yartahay. wixii waa inaanay mushaare iyo ku bixin uun alaab la soo iibiye waxa ee looga reebo investments la geliyo. laakiin mid baa jirta oo dawladdu iyadu wax soo saari kari mayso, imkaaniyaadkiina ma leh. hadday soo saartana meel dheer gaari mayso. iyadu quality control, environmentkii oo hagaajiso, inay hubsato nabaddu inay waarto. qoladan donorska ah adduun markuu burburo, waddan markuu burburo waa loo soo gurmadaa. world bank markaan ka shaqaynay islamic development bankaba balaayiin baanu siin jirnay waddannada burbur oo weliba infrastructureka oo aan private sectorkuna wax u haynin, dawladduna aanay waxba ka tari karin lagu dhiso. inaga wax laynoo sheeganayo laynisiiye ma jiro. laakiin wixii aynu haysanno uun inaynu hagaajisanno kolba tadriijiyan. waxaa just calaa sabiili ilmisaal muqdisho waxay ku bixiyeen 44 bilyan qolo la yidhaha center for american progress oo xisaabisay 19 ilaa 210 waxay yidhaahdeen 44 bilyuun baa ku baxay. hadday noqoto securityga ciidamadaa la keenaya kuwa afrikaan ka mid yihiin, securityga kale, shirarkii iyo piracyga, 4 si loo dejiyo. 44 bilyuun wax yar baa ka gaadhay soomaalida, intiina 96% waa jeebka lagu shubo. waxa weeye si markaad u noqoto gacantaadaad biyo kaga dharagtaa. inaynu teennaa hagaajisano oo waxaynu samaysan karna samaysanno, corruptionka iska yarayno, aynu isku duubnaano, aynu ogaanno meesha aynu ku soconnaa
inay tahay meel giddigeen doonida aynu ku jirno meel wanaagsan oo carruurteennu u aayaan ay noqoto ku dheeraan maa intaasaan ku daynayaa wallahu waliyu tawfiiq wasalaamu calaykum mahadsan yihiin intii soo qaban qaabisay arrintana aad bay u mahadsan yihiin waxaan ka hadlayaa laba arrimood mid waxa weeyaan kharashkeennaa badan oo aad baynu u kharash badannahay oo waxaynaan u baahnayn baa adduun badan inagaga baxaa 2015 75 milyan waxay ku baxday waxaynaan u baahnayn 2016 waxay ku baxday 68 milyan baa ku baxay waxaynaan u baahnayn 2015 kanna waxa ku baxay 137 milyan dollars weeye waxaynaan u baahnayn sababta kolkaa waxa weeye mechanismkii controli lahaa waxa ayaa meeshii ka baxay 70 wasiir uma baahnin baarlamankeeniina uu ansixinay 10,000 shaqaalaha mar qudha la kordhiyey oo intay saxeexaan buugga iska hoyda oo aan muxuu ahaa shaqo qaban xitaa looma samayn inay gelinka dambe shaqeeyaan looguma talagelin baarlamankeenii ma qaban mechanismkii joojin lahaa odhit ha ahaado iyo baarlaman ha ahaado ayaa meeshii ka baxay kolkaa waxa weeyaan lacagayoogaasi haddaynu si wanaagsan u isticmaalayno wax badan bay inoo qaban lahaayeen dhakhtar cusbitaal muxuu ahaa 500 oo sariiroodihii 20 milyan buu ina kalifi lahaa irooyinkiisa iyo wixiisa iyo qalabkiisa ay u dhan yihiin kolkaa imise dhakhtar baynu samaysan kari lahayn haddii lacagtan lagu isticmaalo waxaynu muxuu ahaa u baahannahay ta kale waxa weeyaan beeraha kalluunka xanaanada xoolaha biyaha iyo deegaanka intaa waxaa ka dakhli badan waxaa ka kharash badan wasaaradda madaxtooyada waa unfortunate waa meelihii ay cuntadu inooga soo baxaysa wax waynu haysannaa oo ilaahay weyna siiyo dalku inagu filan yahay laakiin sidaynu u isticmaalaynaa warshadii sibidh haddii la bilaabi lahaa sanadkii hore oo shares yaryar laga iibin lahaa dalka oo dhan oo aan la joojin weliba wixii surplus ka noqday warshaddaa sibidhka warshado kalea la gelin lahaa jibsankii baa jira kalluunkii baa jira waxaa industrialized baynu noqon lahay waxaa la odhanayaa hebel iyo hebel aan la sugno oo hebel iyo hebel aynu siino kolkaasaa la isku qabanaya wixiiba waxay u fadhiisteen waa hebel iyo hebel hala siiyo waxay ahayd from saylac laascaanood ilaa muxuu ahaa laasqoray in waxaasoo dhan shares yaryar laga iibiyo oo aan la joojin kolkii mid la dhammeeyo mid kalaa la geli lahaa industrialized baynu noqon lahayn si dhib yar baynu muxuu ahaa u noqon lahay kolkaa